29 sanadood oo ay bad qabtay badda kheyraadka badan ee ku duugan yahay ee Soomaaliland waxay markan qarka u saarantay inay la kulanto dhibaatooyin deegaan Soomaaliya wasakhow ay sabab u noqoto shirkadda reer Switzerland ee Trafigura oo dhawaan qoyska madaxweyne Biixi gacanta u galiyeen Trafigura oo shirkad dunida kaga diiwaan gashan ka shaqaynta dhismaha qodista macdanta iyo shidaalka laakiin shaqada ay dunida kaga caan ka tahay ayaa kala rarista qashinka iyo kiimikada wadamada dunida shirkadii ku caan baxday dhibaatooyinkaasi ayaa doorkan si fudud ku heshay xeebta dan 850 kiiloomitir aan lahayn ilaalada adag dhawaan ayay ahayd markii xukuumadda Soomaaliland si iskeeda iyadoo aan horgeyn golaha baarlamaanka ay heshiisaan nuxurkiisu cadeynay ula gashay shirkadda Trafigura kuna wareejisay keenistii shidaalka oo koota loogu xiray haddaba waa tuma Trafigura sumcad noocee ayay ku leedahay dunida yaa keenay Soomaaliland maxay tahay shaqada rasmiga ee dunida ka qabataa dhammaan su'aalahaasi waxa ka jawaabi doona barnaamijkeena toddobaadkani inta uu barnaamijkani socdana waxa daawan doontaa qayb ka mid ah barnaamijyo ay BBC-du ka diyaarisay kuwaasi oo soo bandhigaya xaqiiqada shirkadda Trafigura oo aan idin turjunay balse marka hore sidee ayay shirkadani ku milkiday shidaalka Soomaaliland Trafigura waxa la aasaasay 1993 waa waqti ku beegan 27 sano ka hor waana shirkadda saddexaad ee dunida ugu laalush bixinta badan sanadkii galbaday ee 2019 waxa ay laalush ku bixisay lacag ka badan 5.5 bilyan oo dollar sida uu ku waramay wargeyska waafka dheer ee The Guardian taas oo muujinaysa badiba dakhliga sharci darrada iyo musuqa ku soo gala Trafigura iyo ka ay bixisaba shaqada rasmiga ay qabato Trafigura waa in dalalka horumaray warshadaha ku caanka ay ka soo rarto qashinka hadhaaga iyo kiimikada kuwaasi oo ay si fudud ku baabiin kara deegaanka wasakhayn karana bay'ada la geeyo inta badan shirkaddan Swiss-ka ee Trafigura waxay heshiis la gashaa wadamada dunida ee colaaduhu ay ka jiraan ama khalkhalka siyaasadeed iyadoo ka faa'iideysanaysa muranka gudaha kaasi oo ay aaminsan tahay inuu sahlayo hawlaheeda dhibaataynta deegaanka oo ay ku fushan karto si bilaa dareen ah 10 dal oo ka mid ah wadamada saboolka ayaa maxkamad la galay kuna eedeeyay inay badahooda ku aastay qashin iyo kiimiko ay ka soo waariday wadamada reer galbeedka xukuumadda Soomaaliland oo sanadihii u dambeeyay cadaadis baan ku haysay shirkadaha shidaalka ee dalkeena xayirtay keenista shidaalkoodii waxa iyagoo tallaabadaasi ka faa'iideysanaya qoyska madaxweyne Muuse Biixi gaar ahaan inanta curad ee madaxweynaha Hodan Muuse Biixi iyo saygada Mustafa Mujaahid Gacma Dheere ayay ku guuleysteen inay qaataan laalush lacageed oo dhan 1.2 milyan oo dollar shirkadda Trafigurana sidaasi ayay ku keeneen dalka iyaguna wakiil ugu noqdeen Hodan Muuse Biixi oo waqtigan degan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa Dubai heshiis loo dhaxeeyay kula gashay wakiilada shirkadda Trafigura u qaabilsan sahaminta dalalka dunida heshiiskan waxa dalka keenay Maxamed Muuse Biixi oo isna uu dhalay madaxweyne Muuse Biixi waxaana uu ahaa wiilkii lahaa sababta inuu ogolaysiyo wasiirka ganacsiga Soomaaliland Maxamed Xasan Sacad Saajin amar bixinta inanka madaxweynaha ayaa keentay inuu wasiirku si fudud ugu wareejiyo Trafigura shidaalka dalka shirkaddan qoysku wakiilka ka yahay waxa ku magacaaban wiil ay ilmaadeeriyihiin marwada labaad ee madaxweynaha laguna magacaabo Maxamed Yuusuf Cilmi Maxamed Khadar isla markaasina abti waa Hodan Muuse Biixi oo iyaduna wakiilka qarsoon ee Trafigura waxay waqtigan xafiisyo qabtay shaqooyinka kala duwan sida dhismayaasha qodista macdanta iyo rarista qashinka ay ku leedahay wadamo dunida kamida dalalka Yurub waxay ku leedahay 15 xafiis halka waqooyiga American ay uga hawlgalaan 12 xafiis iyo Latin America waa 27 xafiis Afrika waa 9 xafiis oo aanay ku jirin Soomaaliland waxa laga mamnuucay inay shidaalka keento dalalka Yurub, Australia iyo America kadib markii 9 dal oo badan wadamada saboolka iyo dalalka colaaduhu ay ka jiraan ay maxkamada la galeen kuna eedeeyeen inay badahooda ku aastay qashin iyo kiimiko sabab u noqday dhimashada malaayiin noolayaasha badda ah iyo wasakhow sidoo kalena khasaare nafeed u geystay bini'aadamka inta aynan u galin turjumada barnaamijka BBC-da ee dabagalka ay ku samaysay shirkaddan markan aynu eegno qaar ka mid ah 9 wadan ee maxkamadeeyay dalkoodana ka caadiyay shirkaddan Trafigura inuu gacanta u gelinay shirkaddan Trafigura oo ka hawlgalaysay dalka Ivory Coast 2006 waxay heshiis macaamil la samaysay NGO ay lahaayeen dad u dhashay dalkaasi oo ay kula heshiisay inay dalkaasi qashin ku aasaan qashinkan oo ay Trafigura Yurub ka keentay kadib markii ay lacag dhan 500 oo dollar ay siisay hay'adaasi wadaniga ahayd waa ay fuliyeen qorshihii aasitaanka kiimikada balse muddo yar kadib waxa soo baxday waxyeeladii ay geysatay kiimikadaasi lagu aasay xeebaha dhow ee dalkaasi waxaana la ogaaday cidda ka dambeysay waxaana dhibaatooyin ka soo gaadheen dadkii deegaanka iyo kalluumaysatadiiba waxa ku dhintay 7 qof 20 kalena halis ayay gaadheen ugu dambeyntiina dalka Sweden ayaa lagu maxkamadeeyay shirkadda Trafigura muddo kadibna kumanaan dad gaadhaya ayaa xanuun ku soo baxeen waxaana shirkadda lagu xukumay inay bixiso magdhow lacag dhan 198 milyan oo qashinka lagu nadiifinayo iyo 240.4 milyan oo dadka lagu la tacaalayo caafimaad qabkooda
sidoo kalena wadanka Ghana waxa la keenay container qashin kiimikada uu ku jiro halkaasi ayaana lagaga tagay kadib markii la ogaaday inay traafigura keentay lala xidhiidhayna way iska dhaga tireen dawladda Ghana waxay qaaday tallaabo ay ku joojinayso shidaalka ay dalkaasi keeni jirtay traafigura oo isna la ogaaday inay ku badan tahay maadada silfarka oo dunida mamnuuc ka ah dalalka waaweyn waxa ay geyn jirtay shidaal ay ku jirto 10 ppm halka Afrikana shidaalka ay keentay la ogaaday inay ku jirtay 3,000 ppm 10 sano ka hor ayay ahayd markii dalka Colombia wadankeeda ay ka hawlgalaysay waxa ay ku shubtay shirkadan traafigura qashin sababay inay dhamaantood dhintaan kana dabar go'aan badaha dalkaasi Colombia noolayaashii badda oo ay kamid ahaayeen ilaha dhaqaalaha ay ku tiirsanayd Colombia badda waqtigan ee dalkaasi ku yaala Latin America waa mid sumaysan oo aan inteeda badan suurtagal ahayn inuu noola badeed ku noolaado dalka Holland waxay shirkadda traafigura la gashay heshiis shidaal oo ku suntan balse sida caadada waxay uga hooseeyeen inay ka qaado qashinka iyo kiimikada hadhaaga ee warshadaha 3 sanadood oo ay heshiiskaasi ku wada jireen kadib waxa dalka Holland ay ogaatay in qashinka dalkaasi ay ka qaaday dib ugu aastay gudaha dalka Holland maxkamadda dalkaasi ay saartay shirkadan waxay ku xukumeen inay dib uga soo saaraan qashinka nadiifiyana bay'ada ay wasakheeyeen isla markaana iskaga baxaan dalka Holland waxaanay Netherland la wareegtay hantidii maguurtada ahayd ee shirkadaasi ka taalay dalkeeda falkii ay ku samaysay Holland ayaa sabab u noqday in dalalka Yurub joojiyaan heshiisyadii dhinaca badda ee shirkadaasi waxaanay hadda kaga hawl gashaa qaybta dhismayaasha oo kaliya waxay bilowgii aasaaska shirkadan traafigura oo ku beegnayd waqtigii aan la baran dhagaraha ay maleegayso ay dalka Indonesia heshiis ay la gashay shirkadan muddo kadibna waxa ay keentay container moorgaraysan oo ay ku jireen kiimika iyo qashin ay ka keentay warshada dawooyinka farsameeyo ku yaala wadanka Mareykanka waxaanay ku aastay xeebaha bariga fog ee dalka Indonesia sanado badan kadib waxa dibadda u soo baxay containerkii ay aastay shirkadda traafigura waxaanay dalka Indonesia ay la gashay shirkadda traafigura maxkamadii ugu cusleed ee wajahda 27 sano ay jirtay shirkadaasi qaybta baadhista iyo dabagalka telefishinka BBC ayaa barnaamij u waday muddo dheer ka diyaariyay shirkadda traafigura ee lagu wareejiyay shidaalka Somaliland xogaha ay soo bandhigeen ay BBC-du baahisay ayaa daaha ka qaaday sida ay qashinka badaha ku daadiso traafigura u yimaadaan banaanka iyo xilliga badaha dalalka ay ka hawgari jirtay Afrika halka kiimikada qoyan ee dareerahaana ay ku shubto gudaha badda iyadoo saameyn ku yeelata noolaha ku nool gudaha badda barnaamijyadan ay traafigura ka diyaarisay BBC-du waxay daaha ka qaadayaan sida ay dhagaraha wadamada saboolka ay soo gasho shidaalka ugu geysata deegaamadooda saameynna ugu yeelata noloshooda barnaamijka koobaad waxa daadihinaysa suxufiyada ruuqcadaaga ee Lisa McKean oo goobgoob isu dul taagtay dalka Ivory Coast Lisa qaybo kamid ah barnaamijkada waxa ay ku sheegtay Trafigura could have safely disposed of the waste in Europe. Instead, they shipped it to Africa. Traafigura waxay badbaadinaysaa nolosha dadka reer Yurub oo ay ka fogeynaysaa qashinka cudurrada iyo xanuunka uga imaanaya. waxaanay khatar gelinaysaa nafaha dadka saboolka ee Afrika oo ay ku soo rarayso qashinka ay ka keento dalalka reer galbeedka. saxafiyadii soo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay intaasi raacisay. A tanker chartered by Trafigura docked here at Abidjan. Some of the toxic waste was dumped here, right by the village of Djibi. It got into the water supply, killing all the fish that fed the villagers. in kamid ah qashinkii halkan ayuu ku aasan yahay dhammaan kalluunkii ku jirayna waa uu dhintay dadka gagaarkan degan iyo deegaanadeenna waa ay ku waxyeeloobeen. traafigura qashinkan ay ka soo qaaday dalalka shisheeye markii ay badda ku daadisay waxa ay u soo caariyeen dhinaca bariga dhammaan dadkaasi iyo dhulkaasina waxa ay ku waxyeeloobeen qashinkii traafigura ay keentay. wariyahan ka midka ah qaybta dabagalka ee BBC-du intii ay baadhista waday waxay la kulantay inay qoyskiisa waxyeelo ka soo gaadhay qashinka shirkadda loogu sheegay inay shidaal keenayso kuna soo qubtay badahooda waraysi ay la yeelatay ayaan uga xog waramay wixii dhacay. My wife, when they dumped the toxic waste, we went to the hospital in Tuka and they asked us to get checked. gabadhaydu waxay subaxnimo hore tagtay goobta qashinka badda uu ka soo caariyay markii ay soo noqotayna waxay timi iyadoo xanuunsanaysa waqtigaasina waxay lahayd uur waxaana la socday ilmo kale oo ay sidatay maalintii labaadna waa uu dhintay ilmihii la socday markii uu dhashayna kii ay uurka ku sidayna sanad uu xanuunsanaa kadib waa uu geeriyooday. saxafiyad Lisa waxay sheegaysaa in ninkani qashinkii traafigura badooda ku daadisay uu ku waayay labadiisii caruur ahaa sidoo kalena ilaa maanta oo waqtigaasi laga joogo waa 2019 uu ku xanuunsanayso xaaskiisa saameyntii qashinkii shirkadaasi badda ay ku soo qubtay.
haddaba waa maxay danta Somaliland ugu jirta shirkad dunida sumcad xumo weyn ku leh in ay keento dalkeena waxaanu oran karnaa kama badna dana dhaqaale sidan oo kale madaxweyne Cigaal oo shirkadii Total ku wareejiyay shidaalka Somaliland waxa uu horgeeyay ansixinteeda baarlamaanka Somaliland madaxweyne Axmed Siilaanyo oo shirkadaasi dalka ka cayriyay isaguna laalista go'aankaasi madaxweynaha hore waxa uu ku buriyay oo meesha kaga saaray cod gacantaaga oo golaha wakiilada Somaliland ay sameeyeen haddaba talaabadan uu madaxweyne Muuse Biixi warqad uu wasiir qoray ganacsatada muwaadiniinta Somaliland ka qaaday ganacsigoodii shirkadan qoysku calmadayna uu kootada ugu xidhay shidaalkii dalka ayaa ka turjumaysa qalafsanaanta kaligi talisnimada iyo kale tooxsiga leh madaxweynaha haatan Muuse Biixi Cabdi garyaqaan Mubaarak Aar oo kamid ah sharci yaqaanada Somaliland ayaa ka waramaya sharci jabinta xukuumadan ee haatan haddaba aanintan ku saabsan shidaalkan la keenay dalka ee markabka Taragafagura uu keenay xukuumaddu ay runtii ay ka ay wado markaad hawsha adeegto sharciyadeeda markaad adeegto processka loo maray sharciga ma waafaqsana sharcigana wuxuu dhigayaa kow marka xukuumaddu rabto inay hawl bilowdo hawshaasuna ay siyaasadda dalka wax ka bedelayso ama dhaqaalaha wax kale ha noqoto xukuumadda wax laga rabo kulli ugu hore policy inay ka soo saarto policy macnaheedu waa maxay waa in runtii document la ansixiyay oo golaha wasiirada maray oo la isla qaatay oo la faguray oo waxa la raba cadeynayo waa in horta meesha yaala ka marka la helo ayaa waxa imanaya kadib in la yiraahdo waxa waa loo baahay kaana waxa la socda researchkii baa la socda in ma loo baahay shidaal cusub in dalka la keeno shirkad la keeno maxaa loo keenayaa maxaanu ka faa'iideynaa in research ahaan loo la fagura loo baahay taasi marka xukuumaddu ay la fagur ka keento ee policy-ga ay soo saarto ayaa waxa imanaya legal framework in loo sameeyo sharciyada ku shaqeey lahaayeen maanta qorada inoo timo sharciyad ma haysan ay ku shaqeeyaan waa sharciyadii la sameeyaa xeerarkii khuseeyay iyo xukuumadeeda maxaa ka dhaxeeya xukuumadda iyo shirkadda sida u wada shaqeynayaan xiriirkooda muxuu noqonayaa sideeba waxaas oo dhan waa in wada cad yihiin baa loo baahanyaa marka la isla qaato shirkadii heshiis baa loo baahanyaa heshiiska noocan maanta shirkadaha noocan marka aad keensanayso dalkaaga waxa la yiraahdaa waxa weeyaan heshiiskoodu waa muddo dheer koow shardiga way leeyeen lambar 2 waxa la heshiisyada noocaas lagama baxo waxa la yiraahdaa maxaa board contracts baa la yiraahdaa heshiisada laga bixi karo weeyaan oo qaabab fara badan oo kala duwan loo galo noocyo badan buu leeyahay heshiisada noocaas markaad galayso khubaro qaanuuniina qaar dhaqaale dad technical oo kala duwan aad haysataa si fiican waanad uga shaqaysaa marka kadib maxaa kale loo baahan yahay golaha wakiilada Soomaaliya waa inay ansixiyaan qodobka 13 ee dastuurka Soomaaliland baa sheegay faqriga saddexaad baa sheegaysa heshiisada noocan ay miisaaniyadda dalka wax ka bedelaya ee marka qaar culays keeni kara marka 3 bilood baa dhowr bilood bay hamu marnaayeen culays miisaaniyadda waa dhacay in waxa kale laga yaabaa hadhowna inuu soo bixi karo wax kale waxa laga yaabaa inay iyagu dhaqaale keenaan dhinaca positive ay noqoto dhinaca ka noqoto waa laga yaabaa laakiin maxaa loo baahan yahay waa in golaha wakiilada ay ansixiyaan Somaliland ayaa waajihi doonta khatar ilaa maanta raadkeedu ka sii muuqdo Afrikada galbeed oo ay geysashadeeda ku caan baxday shirkadda qashinka iyo kiimikada wadanka qaada wadan kalena geysa Somaliland ma laha ciidamo iyo dad aqoontoodu sareyso oo ka ilaalin kara nolosha dadka tan noolaha badda deegaanada dagarta ay maleegayso shirkadda Tarafigura sidoo kale madaxweynihii loo doortay ilaalinta nolosha dadka iyo daryeelka deegaanka ayaa markasta la arkaa in isaga iyo qoyskiisuba ku mashquulsan yihiin dilaal iyo manaan dalka khatar gelin kara iyaga oo la jeclaysanaya madaxweynaha iyo qoyskiisuba malaayiin dollar oo soo galana ku bedelanaya nafaha dadkooda waxay curyaamiyeen ganacsatadii shidaalka ee reer Somaliland sidoo kalena waxay qaadeen tallaabo dalkani ka qoomamayn karo oo ficil khatar ku ah bay'ada dalka ay ka arrimiyaan